الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أن درسه حكوسة بسيسانيهاي كن نافعا وفق مسلم كاهين النغضة قف واحتره waxa uu qofku qabanaya waxay ku xidhnaan doontaa mas'uuliyadiisa iyo inta uu awoodo. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamayaa almu'minu ya'laf wa yu'laf walaa khayra fi man laa ya'laf walaa yu'laf wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas. xadiidkaasi sheekh al-Albani xasan ku tilmaamay wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ahi waa mid lagu soo hirto, yani dadku ay ku soo talagalaan, ama waa mid dadka soo duma soo dhaweeya isna la soo dhaweeyo. dadka badhba haddaad aragta laga weecdaa sharkiisa, dadka badhna waa lagu soo hirtaa meeshu joogo. qofka mu'minka ah nabigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qofkaasi lagu soo hirto. waxaanu sheegay qofka dadka sharkiisa iyo dhibtiisa dadku ay uga cararaan inaanu khayr lahayn. dabeetana nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas. dadka waxaa u khayr badan ka u nafciga badan ka u waxtar badan. dadka waxaa u khayr badan ka u waxtar badan. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa mar kale isagoo jooga waxaa la keenay la sheegay nin dibqallooc qaniinay. markii dibqalloocu qaniinay ayaa nin yimo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo annaga qoladayadu waxbaanu tufnaaye, dadkan dibqallooca wax lagu tufaanu naqaanaa ku akrinaaye ma ku akhriyaa? bal soo bandhig buu yidhi waxaanad akhridaan muxuu yahay. wixii buu sheegay. dabeetana wuxuu nabigu yidhi ba'si kuma jiro tanaad sheegtay, man istataaca minkum an yanfaca akhaa falyafcal. ciddii awooda walaalkii inuu wax taro ha yeela buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ha taro. xadiidka saddexaad aan tilmaamaynaa wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi oo wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi ayu nnaasi axabu ila allah وأي الأعمال أحب إلى الله. ضدك يا ألا وجعلي هي أعماش سمحة إلى هي وجعلي. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان حسن لغيره والشيخ الألباني كل شيء جيو. النبي يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ضدك إلى هي وجعلي هي قوة ضدك وقوة تربضا. أعماشنا waxa loogu jecel yahay buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sururun tadkhiluha ala muslim. qof muslima aad farxad geliso ka farxisid, takshif canhu kurba dhib haysato aad ka faydid, aw taqdi canhu daynan ama dayn lagu leeyo aad ka bixisid, aw tatruda canhu juucan ama gaajo aad ka quudisid. wala an amshiya maca akhin fi xaajatin أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. النبي عليه الصلاة والسلام إن قف مسلمة سئام باهدي سأولجده راعه أيان كجعلها مساجد كي كان ومسجد المدينة إن بالكو اعتكافه وحن كدر بدا يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام قف مسلمة باهدي سينا جده. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. qofka caradiisa qarsada isagoo awoodi kara inuu guto aar guto
kaana ilaahay qalbigiisa maalinta qiyaame raalli ahaanshiyu ka buuxiya qofka walaalkii raaca ee xaajadiisa ilaa intuu uga gudayo raaca isagana maalinta qiyaame ee aanay bini aadamku sugmi karaynin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala gommadiisa suga saddexdan xadiis aan akhriyey alfaadooda aan idin sharxay waxay wadaagaan oo sheegayaan qofka muslimkii inuu qof waxtara noqdo waxay sheegayaan acmaasha alle u jecel yahay inay tahay dadka kuwa ilaahay ugu jecel yahay inuu yahay dadka ka ugu nafci badan nafcigaynu ka waramaynaa ama nafci adduunye ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo bini aadamka waxa ugu nafci badan ambiyada iyo rususha waayo ilaahay baa wuxuu soo dhibay waxay aadanaha ku badbaadin lahaayeen adduun iyo aakhiraba oo markastoo bini aadamku uu qalloocdo oo jidka saxda uu ka lumo waxaa la soo dirayay rasuul ama nebi kaasoo loogu talagalay dadka inuu saxo oo noloshooda adduunyo wixii ka qaldamay inuu u toosiyo noloshooda aakhira wixii ka qalloocdayna inuu u toosiyo idan nafciga qofka muslimkaa laga rabo inuu yeeshaa waa nafci adduunyo iyo nafci aakhiro wixii uu tari karaba nafci aakhira u weyn oo ilaahay markuu dhaartay wuxuu yidhi walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr ilaahay intuu dhaartayba wuxuu ku dhaartay bini aadamku inuu khasaare ku sugan yihi waxaa ka soo reebay cidda aan khasaaraynini inay tahay dadka laga hela iimaan iyo camal saalixa iyo xaq oo ay isfaraan iyo wixii dhib xaqa ka soo gaadha faritaankiisa oo ay ku sabraan cidda caynkaa samaysaa waa cidda khasaaraha ka badbaaday idan dadka waxa u anfac badan leh khasaaraha la hubo ciddii bini aadamka ka badbaadisa khasaaraha la hubo waa khasaaraha ilaahay uu ku dhaartay walcasri ina alinsaana lafii khusr ilaahay baa ku dhaartay subxaanahu wa tacaala haddaba waxaan leenahay dadku haddii qof waliba shaqada inta ku beegan uu qabto noloshu waa wax fudud oo la habayn karo haddii dadka inta ugu badani inta iska fadhiistaan dad gaara la yidhaahdo waxa qabtaan ummadaasi ma horumarto مثلا النبي محمد مركو جوغي عليه الصلاة والسلام صحابو الدين وشيغي مية اسكفر ديانا يدهدين دين نبي ما ماشي جوغا مايا إيانا ويسي شيغيين سيدا اوغين بي دمان تود شقا هيين دمان تود شقا دا يقبتين مثلا أبي بكر عشرة المباشرين رجي هو وينار ركم إذا وحا كاني أبي بكر بس هو إسلامي ونبقى كان عليه الصلاة والسلام نبقى نوصي هرماني صحابة النمو اللي بالشقاء انتو قرن يجي مقبطة من دقال كقيب قاله من هقامية دقال نوض من أول كتبت حديث كو أركتين عن خالد خالد بن وليد سمى مغل ميدان مغل حكو عام بحد خالد حديث ورينا ما يبغى شيء عن خالد رضي الله عنه ولا ليه لقى ما يبين دركته هدنا عند المسلمين ورجل معروفة عند المسلمين ده تاريخنا ما أنت بني آدم ككلية استراتيجية ده عساكرت خطط كيسيبا لغوليغا وحكم ده وحي ومدة وقبن كريه وغبطه كوي علم قبرتي وحي ومدة وقبن كريه بقبتين كوي تلقرني وحي ومدة مركا قف ولما مركا وكنت تلقلين وحقبته ويقول يسته حديثة مثلا دين تفافين هذا تلاهدان أو هبل أو هبل بقى مسؤول كأدي دين ضد أنت كلنا ويسوع جيان دين فافي ما يسوع أو هبل أنتو قارية ضد كي مسلمين تسوي إسلامية مركو صدق عشان النبي قال لك شو جنبه بحي ده بتنسوا قبائل دم وضع سوي إسلامي وكيني ضد كسيم كشوجا أفرتن صناد مسلم هيد ولي كانوا قف مات كيني أفرتن صناد مسلم هيد وهي أدوين حلكوا بكساري بعد ربع سنين النبي عليه الصلاة والسلام مركب وقت المامية ضدك وحى خير بدن ضدك النفع بدن له واحترسن واحتر كاسي
wax kasta oo bini aadamka la taraa waa waxtar xataa xayawaanka waxa la taro xataa xayawaanka xadiista waa ku aragteen qof dumaroo la yidhi ay waraabisay baa ilaahay ugu dambi dhaafay ay bay wax tartay dabeetana appreciation waa la qiray waxtarkeedii fashakara allahu lahaa baa layidhi ilaahay baa uga mahadnaqay eygay waraabisay nebi yuusuf baan qisadiisa markaa dhowr shay ka tilmaamaya maadaama waqtigu koo kooban yahay nebi yuusuf iyadoo la dulmiyey oo dembi aanu gelin lagu qaaday iyadoo la og yahay inaanu dambaabin uma badaa lahum min bacd ilaahay wuxuu tilmaamayaa markay u caddaatay inaan waxba samaynin bay xukumeen oo ay xabsiga dhigeen muu odhanin nimanka ay xidhay waa gaalo xabsigoodii baan ku jiraa nimankaa wax damboona maraya naga dhexeeya ma jiraan إلهي وحليه سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين لبويلو كم إذا دتك حبسك لك علي أي أيمي ريا أي كسر رياضين بيلي النوفصر riyada waa la fasira waa cilmi la barto waana dhici kartaa riyadu sidii aad ugu riyootay practically inay iyadiiba noqoto aan ta'wiil u baahnayn waa dhici kartaa inay mid ta'wiil u baahan tahay waa dhici kartaa in shaydaan iyo naftu kugu cayaareen oo waxaad ku riyootay baanay wax qiimo la ahayn si kastaba ha ahaatee nebi yuusuf riyay u keeneen riyadaa noo fasir bay yidhaahdeen maxay raaciyeen innaa naraaka min almuxsiniin isagoo xabsi ku jira ayaa waxaa la leeyahay waxaanu kuu aragnaa qof wax tara oo ixsaan sameeya inaad tahay macnaheedu waxa weeyaan xabsiga gudihiisiibu wuxuu ku caanbaxay qof muxsina oo dadka wax taraya wuxuu tijaabiyey inuu iyagana wax taro laakiin wuxuu uga bilaabay waxtarka weyn buu uga bilaabo marka hore wuxuu sheegay ninkuu yahay inuu aabbayaal iyo awowyaal nebiyaa ku abtirsado dad tawxiidka rumaysan inuu yahay dad gaala ah inuu ka yimi dabeetana intaanu riyadii fasirin wuxuu u sheegay wixii ugu anfac badnaayee dadkani uu u baahnaayeen yaa saaxibaya sijn aarbaabun mutafariquuna khayruna min illaahi lwaaxid war ma rabbiyo tiro badan baa faa'iido badan khayr leh mise ilaah keliya in la caabudo maa tacbuduuna ilaa asmaa'an samaytumuuha antum wa aabaa'ukum wuxuu u sheegay markaasi gaalnimadu inay xun tahay ilaahay keligii inay rumeeyaan taasina inay tahay diinta quman kow waxtarkii markaa wuxuu uga bilaabay waxtar diineed oo aakhiradoodii adduunkooda badbaadinaya mar labaadna wixii ay ka dalbadeen buu u sharxay kii yidhi khamri baan walaaqayayna oo wuxuu ku yidhi waad bixi doontaa adigu khamrigaasaad walaaqi doontaa boqorkaad u shaqayn doontaa kii yidhi anigoo dusha kimisku sida khubus anigoo sida oo shimbira ka cunayaan ayaan ku riyooday wuxuu yidhi adiga waa lagu dilayaa dabeetana waa lagu salbinayaa saasaad ku dhimanaysaa idan labada nin nebi yuusuf wixii ay rabeen wuu u sheegay wuxuu kaloo ugu daray wax uga anfac badan waxay rabeen oo ah inay salaamaan nebi yuusuf mar labaad iyo mar saddexaad baan ku noqonaynaa qisadiisa waayo waa meelun baan rabaa inaan taataabto waxa u yimi walaaladii oo kuwii godka ku riday ahaa muu odhanin haddaanana fursad haystaaye haweenanana god kale ku ridaa isagoo yar bay qaadeen god bay ku rideen waa kaga tageen dabeetana wixii iyo mashkilada uu soo maray de iyaga u sabab ahaa godkii baa laga qaatay sidii xoolaha la kala iibsaday nin boqora baa iibsaday gurigii boqortooyadu ku noolaa islaantii guriga joogtay baa hunguraysay waa diiday kufsi oo istidhi waa cararay waa marada ka daldallaacisay albaabkaa lagula kulmay dabeetana isagiiba haddana la xidhay iyadoo laga markhaati kacay inaan isagu waxba dhimin ayaa isagii la xidhay kuwii waxaasoo dhiba u sababo baahan baa u yimi maxay leeyihin قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه
إنا نراك من المحسنين ويوي مادين راشد بوسيي هدنا لعقتي أي ستين وقدري وصار نقطة أخيرا مركي ولا الكوت كلا حريرة أي وحي لين نكاغن ثلاث حيا ويل كان يرى أبو دا أبو لي أمت كايو كبدل إنا نراك من المحسنين أريك بروتشي ذا مركا أريك لبادي إننا حبسك الله قال يكوي رهدين أيو كليهين يوسف ولا الذي وحيلين إنا نراك وحنكو أرقنا من المحسنين كو صرف لنا كميطاي جوانك يا جودك كردين وهدنا وليبا مرضى مرة وكبين أبورتين ومركو ويلك كرهبي وحيلا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل سقوا مدحوينا بغر وماشي تاقن بي وحيلين إن يسرق hadduu yakani waxaday mid ka horeeyay walaalo Allah ah baa jiro tuuga way isagan hor taagan ay leeyin mid hore tuuga baa jiray waxa soo dhan uu qabanin ee waxbuu taray saawgeed baa walaaladii dhibta u geystay waxay leeyin inna naraka min almuhsinin kuwa xabsiga la galay waxay leeyin inna naraka min almuhsinin inta waxa sii dheer nabi yusuf isagoo xabsiga ku jira وواحد دمبينا أنجلين أيا بقرك الرياضي بقرك مركو الرياضي أيو الرياضة هلا يفسره رياضي بقرك ضدك ويفسير جروايه أضغاث وأحلام بكت المامه تنفسر كذا جرن ما ينبين هذا كيو يدي برجي هروة بدبادي سايو بقرك وش غايا حسوستي مركي هروة بقرك أركي وش يك بيوده وحلو وش يك بس كي لابه لكن ما كان مركي الريال سوق هذا يبغى حسوسته دبتنا وحيد حلا يدرانيها أنا يوسف فتجي نبى هالكير جوجا حبس جاي والرياضة صفي عنه فصيرة أنا جه حلا يدرو نكيب يمي وحلي يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون waxaanu aragnay 7 boqorkii wuxuu ku riyooday baa la yiri 7 saac oo naxnaxsan oo 7 liita cunayaan iyo 7 saabuul oo cagaaran iyo 7 kale oo engegan riyada fasir buu yiri waxa laga yaabaa dadkii inaan ku noqdo way wax gartaan hadii lagu xidho oo dawlad gaaleed ku xidho والله إذا درج الوزراء ما مدحوينه بالرياضة والرياضة الرباين لفسره وأدولي بوقت الرياضة لأن كور مثلا قالها وضع كان يصير اللي يلي حد يلي له هذا وقالها مرتين كده نبي يوسف مو أورني نور ما كان قال هذا إسكا بندان الرياضي بفسره مو أورني هرت حبسي جاي سيدا يهدر ربطنا وحيد طبعا مو قرقر تمين حبسك هدان كبحون ما وحيدين سبعين ما كورنين وحتاجين هي أنفع الناس إنه نقضه خير الناس ينفعهم للناس وحوش يجوا وحكوا تضبصنا وبرواقع إذا صامر الدونة تضبط برواقع وحي قوسطان سابول كيسودا يمرها أنت عنيسان مويانا أنت كرسيدة دمال كلها waxa ku xigi doona buleey 7 sanadood oo kala abaar ah oo 7 sanadood ee abaarta waxa cuntaan 7 hore wixii ay beereyseen baa la cunaya sanad kale ku xigi doona oo maxay barwaaqo ah oo nimankan 2 toddobaad bay u sheegeen sanadka daba xaq ka keenay hadii 7 barwaaqatay oo 7 ku xiga abaar tahay كحجة وين نقطة برواقة دي كلام حرام لا سديد عبارة دين صابرس ما دام يريد 7 أبارة ومعروف السنة كحجة مركانه خلافة هذه 7 وياي نبي يوسف وحوشاغي شن يطبن سنادود نقالها ودن كسيدي لو معمول لها شن يطبن سنادود المستقبل كيسا صعدة هي نقالها ودن كان مصر لا يراهدو سيدي لو معمول لها بو شرح waxaan u sheegay dhibaatooyinka soo socda waxa lagaga baxayaa inay tahay 7 sanadood ee hore kaydka ugu badan in la dhigto in yar oo la cuno mooyaane 7 abaartee dambana kaydkii la dhigtay in lagaga baxo
dabeetana sanad baa ku xigi doona. waxay tilmaamaysaa qofka muslimka inuu yahay qof naafica aynamaa xal wartaxal, meel kasta uu dego ama se uu tago, qofka mu'minka inuu yahay qof wax tara. abibakar ayaa mushrikiintii markii ay dhibeen muslimiinta ayuu is yidhi iska hijrood ardal xabasha iyo meeluu kaco ka bax makuu ka baxa. barkii lghamaad meel la yidhaahdo markuu marayay ayaa waxaa la kulmay nin la yidhaahdo ibnu daghina. ibnu daghina qabiil qaara la yidhaahdo buu oday caaqil suldaan uu u yihi, waa qabiil gaaleed. dabeetana abibakar buu wuxuu ku yidhi ayna turiid ya abibakar, xagaad ku socotaa? abibakar baa wuxuu yidhi akhrajanii qawmi min hadihi lbalda faana uriidu an asiixa fi lardi faacbuda rabbi. tolkay baa i soo saaray oo maka iga soo saaray, waxaan rabaa an asiixa fi lard. siyaaxada waxaa la yidhaahdaa culammadii hore waxay ku tilmaamaan inay tahay qof intuu iska baxay inuu ilaahay inuu cibaadaysto, meel gaaraba aan ku soconin, iska dhaqaaqunoo meeshaad aragtaba ilaahay uu ku caabudo meeshaas kaga tag. abibakar wuxuu leeyahy maka waan iskaga imi, waxaanan rabaa inaan iska socdo uun ilaahay dhulkiisa maro oo aan ilaahay caabudo, waayo tolkay baa i soo saaray. u fiirso, ibnu daghina waa nin gaaleed oo oday qabiil gaaleed ka taliya ah. wuxuu ku yidhi ina miluk laa yakhruj walaa yukhraj. adigoo kale buu yidhi abibakarow, nin tolkii ka tagana ma tihid, nin la saarana ma tihid. adna kuuma cuntato inaad iska tagto, nin la saarana ma tihid. waayo abibakar wuxuu ku leeyahay markaa fainaka tuksibu lmacduuma watasilu lraxima wataxmilu lkalla wataqri dayfa watuciinu calaa nawaa'ib alxaq. abibakarow buu leeyahy adigu waxaa tahay nin dadka faramadhane aan waxba haysanin wax tara. waxaad ahay buu leeyahay nin riximka iyo qaraabada iyo tolka xidid iyo xigaalba xidhiidhiya. waxaad ahayd buu leeyahay qofka culus ee ama dayn ama mag ama wax loo haysto qof ka roga culayska. waxaad ahayd buu leeyahay martida qof soora. waxaad ahayd qof ugu gargaara dadka nawaa'ib alxaq. abibakar markaa wuxuu ku sifeynaya qof bini aadam oo wax tari wixii uu qaban jiro o dhan inuu qabto. waana nin mushrika ninkaasaa ku sheegaya. yacni abibakar wuxuu ahaa dadka ugu anfaca badan leh ee bulshada keeda baahan, keeda liita, keeda culus, keeda musaafirka ku walba wax tara. saa awgeed buu leeyahy ninka qiimaha leh ee bini aadamka sidaa wuxu tara nin la saaro maaha. aniga ayaa ii magan tahay buu yidhi. abibakar wuu soo celiyey, makuu keenay isagoo inamadiisiina wata. quraysh buu isugu yeedhay, wuxuu yihi qurayshay dhegaysta, abibakar waa magantay. ciddii abibakar taabataanay u taabatay. carabtuna magantooda aad bay isugu ixtiraami jireen, weliba markuu ninku yahay nin odayo reer ka taliya. abibakar siibuu maka ku yimi, inkastoo markuu wakti joogay gurigiisa hortiisuu masaajid yar ka samaystay. nin markuu tukado aada u ilmeeya buu ahaa. dabeetana quraysh ba ka ashtukoto waxay yidhaahdeen intay ninkii u tageen, abibakar dumarka iyo carruurta iyo dadka buu naga fitnaynaya, halkaas buu maanta o dhan ku ooyaya qur-aan akhrinaya. dee dadku ninkan weyn ooyaya waa raacayaane gurigiisa ha gala bay yidhaahdeen. hadduu doonayo inuu ku jiro magangelyadaada gurigiisa ha galo, wuxuu doonaya ha ku sameeyo. marka wuu u yimi, wuxuu ku yidhi de abibakar waa lagaa cabanayaa, anigana waxaynu isku ogeyn inaad magantay tahay, dee tolka inaad dhibtano kuwa gurigaaga iska gal. abibakar wuxuu yidhi ama aan kuu soo celiyo magantaadii. dabeetana wuxuu yidhi abibakar waradna maganimadaada iska qaado, anugu mabda'iga waan wadanayaaye, adiguna free baa tahay maanta laga bilaabo, xel kuma saara. waxaan uga dan leeyahay xadiidku waa dheer yahay, laakiin anigu meeshan u jeedaa waa maxay? nin mushrikaba abibakar wuxuu uga markhaati kacaya caynkan. xataa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam intaan mucjizaadkan badani ka muuqanin, dadkii ugu horreeye islaama maxay ku rumeeyeen? maalan dadkii ugu horreeye islaama waxaynu odhan karnaa khadiija ka mid ahay.
markuu nabigu u yimi calayhi salaatu wasalaam zamiluuni zamiluuni isagoo leh iddada iddada oo cabsanaya ayaa waxay tihi wallaahi laa yukhzika allahu abada ilaahay baan ku dhaartee alle weligaa ku hoojin maayo waayo qof waxtaraad ahayd bay leedahay intan abibakar lagu yidhi in leeg bay ku tidhi khadiijo waxay leedahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo le waan cabsanayaa ama waxay ku leedahay ilaahay baan ku dhaartay rabbi ku hoojin maayo sababtu waxay tahay mid kaa waxaysan wax siiya tii qofkii qaraabo ah xidhiidhiya qofkii culays haysta culayska ka roga qofkii martiya marti soora yacni bulshada qof wax ku tarabaad ahayd bay leedahay saa daraaddeed ma suurtagal aha in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku hoojiyo taasi waxay sheegaysaa muslimiintii hore noocay ahaayeen ambiyadii nabiyullaahi maxamed nooc uu ahaa abibakar wuxuu ahaa maxaa dadku ku rumeeyeen maxay dadku u raaceen maxaa looga dambeeyey dad waxtara bay ahaayeen bulshada dhexdeeda dad waxtar ku ah waxtarku mid aakhira ha noqdo ood qofka naarta ka badbaadso dee waa waxtarka ugu weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyey waxaa ka mid ahaa wiil yaroo yahuudiya wiil yahuudiya wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu xanuunsaday waxaa loo soo sheegay nabiga wiilkii inuu buko oo guriga aabihii jiifo dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay wiilkiibuu soo booqday dabeetana wiilkiibuu la hadlay intuu madaxiisa fadhiistay buu wuxuu ku yidhi warayaa wiilow aslim war iska islaam wiilkii baa aabbihii eegay markaa aabbihii baa wuxuu ku yidhi markaa atic abalqaasim sala allahu calayhi wasalam yeel waxa uu kuu sheegaya abalqaasim waa nabiga calayhi salaatu wasalaam kunyadiisa dabeetana wiilkii baa islaamay markaasuu nabigu wuxuu leeyahy alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxaan mahad u celinayaa allihii ka badbaadiyey wiilka ka naarta ka badbaadiyey aanu gaalnimo ku dhimanin yani nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu gurigiisii uga yimi ee uu gurigaa yahuudiga u tegey ilmaha yare xanuunsanaya ama wiilka xanuunsanaya inuu naar ka badbaadiyo aanu ku dhimanin gaalnimada inaanu ku dhimanin waxay leenahay dadka in wax la taro oo waliba dadku waxtar waxay ugu baahi badan yihiin markay baahan yihiin ama aakhiradooda ha noqoto ama adduunkooda ha noqote islaamnimada macnaheedu waxa weeyaan waa qof bini aadamkoo dhan nicmada la jeceliyo wanaag iyo khayrka waxaa dhacay ilaahay wuxuu qur-aanka ka warramaya qiso suuratu yaasiin qisada ku jirta mu'min suuratu yaasiin nin ayaa ilaahay ka warramay ninkaa ilaahay magaciisa inooma sheegin magaalo uu deganaa lama sheegin wax taytalo uu watay lama sheegin ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wajaa min aqsa almadiinati rajulun yasca magaalada halka u dambaysa nin ordaya ka yimi ninkan magaaladii uu joogay 3 rasuul baa loo soo diray u fiirso qisadan 3 rasuul baa la soo diray 2 la soo diray 3 baa lagu wixiiba waa beeniyeen adigu haddaad joogto magaalo 3 rasuul loo soo diray oo 3daba la beeniyey maxaad yeeli lahayd inta ugu badan waxa dhaw ma nimanka rasuusha diidaaniga aqbalaya soo ay kaan ma tirahdeen يعني مسؤولية ما صارت ما دام 3 رسول بلديدي والله ده ماشي 3 رسول لديدي مشقة كبرنا لكن كان إلهي قرآن كلا آخرنا يا إلى قيام الساعة قصدي سوى حلوه قري وقف اسكت دين ومسؤولية قاضي كأنفعه اسمه أوران 3 رسول ما ماشي شوقي وحو قرتي إن سجنا حل ساري وغيران إنه ضدك كوي هذا وهو يعني من كان راع سببتك الراعي سنة وردي شبيه وحلي يا قوم اتبعوا المرسلين والرسل شراع بولي وهو محي سببته اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لما سببات بو راع بولي نمكن وحبيدك مرة بان مركو هوري بني آدم كهدي يقول هدو يسيرادو نكن يدقالو كوغود دونيا يا كرسو كوغود دونيا يا وحبو أديك كاد دونيا هدا سيرادو وحلقة يبينات هراو راعين وصلين كان دنتي سوطا مركا وحلي والرسل شو مركو هراو وحبيدك مرة ربطو وامر marka labaadna muxuu ku tilmaamay wahum muhtadun wa hanusayin raa'a sadab ma sharxayo laakiin waxa uu gadan leeyahay inta dambe
ninkii dadkii wuxuu leeyahay rususha raaca uu tawxiidkiisii buu qirtay wuxuu leeyahay anigu nimankaasi xaq bay sheegayaan waan raacay qisada ka muuqata waa la dilay ninkii waa la dilay ilaahay baa ka warramaya markuu dhintay siduu u fakarayay markuu dhintay aakhira qabtay siduu u fakarayay baa ilaahay inoo sheegaya muxuu ka fakarayaa qiila dkhuli ljanna baa ilaahay leeyahay waxaa la yidhi war jannada gal قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين تلكي ولي وناك بول الراد عينيا وحلي الله جعلان لهاي إني تلكي أقادان وحن معي لهي سياسة دبي ويقول ضافي إينها إسلاماني وحو ولي خير لا جعل يكوي سودي لي مو أردنين هذا قاعد يقول قد لهم هذا الله إلا ونار تكوا كوفا سماها يعني عقله بني آدم كوين تبضان أرصو بك فكرة وكوي وحكو سمياد ونا آخرة ودر لكن يقول للدلي وقردر الود لي وصدح رسولي بينيين وحوي يلي حق هيدو قردر الود لي هدرا أيها هدرا وحك فكرية ورنمنكي يا ونا قال هلاي وشيغا يقول الرعاني marka waxay tilmaamaysaa qofka mu'minka inuu yahay dadka qof khayrka la jecel dadka qof raba inay wanaaga qaataan khayrka la jecel haddaba qof kastoo muslima xilka saarani wuxuu yahay inaad noqoto qof bini aadamka khayrka u horseeda hadduu yahay mid adduunyo iyo hadduu yahay mid aakhiraba dunida dadku waxay ku islaaxi lahaa say nabad u heli lahaayeen kuwada ducafada si loogu gargaari lahaa kuwada jaahilkaasaa wax loo bari lahaa kuwada aqoon-yahankaasaa loo tilmaami lahaa ummaddu markuu qof waliba xilka isa saaro oo contribute gareeyo wanaaga ayay ummad jirta noqotaa ummadda marka qof waliba uu iska dhiga cadam ilmas-uuliya inaan isaga waxba saarayn qol kalena laga sugo inay wax hagaajiyaan way jabtaa waana soomaalidu say hadda u badantay dad maqan oo inaan garanayn meel ay ku maqan yihiin baynu sugaynaa waddankeennii iyo dalkeennii iyo dadkeennii bayna hagaajiyaan innaguna waxaynu rumaysanay qof waliba inaan isaga mas-uuliyadi saarayn ilaahayna wuxuu inoo tilmaamaya qur-aanka ninkaa saddexda rasuul iyadoo la diiday rumaysanin mas-uuliyad saaranta xil isa saaray weliba meesha lagu diiday aan joogin ee ka yimi min aqsa almadiina magaalada halka ugu dambaysa sifadu ku yimi haddana ahayd qof mas-uuliyadda xambaarsan oo degdegaya ilaahay wax calaamadana uma yahay rajul wala tankiiri rajulun baa lagu tilmaamay oo yasca nin ordaya unbuu ahaa waxaynu u baahannahay markaa ayuha alaxiba dad wax tara inaynu noqono nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa daa inaad wax practical oo ummadda u qabatee haddaad tilmaamto uun nin baa nebiga u yimi sheeganaya dhib wuxuu raacana inuu u baahan yahay dabeetana riwaayaadka qaarkoodna nebigaa yidhi bay leeyihin riwaayaadka qaarkoodna nin kalaa yidhi mahma takun nin baa wuxuu leeyahy war hebel u tag waa laga yaabaa inaad isaga wax ka hesho nebigu waxba ma hayo markaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya ninkan inaanu waxba tari karaynin laakiin mu odhanin waxba ku tari kari maayo iska tag ee waxaa la yidhi bal hebel u tag waxaa laga yaabaa inaad ka hesho waxaad rabtay hebelkii buu u tegey dabeetana dantiisii buu ninkii kale u fuliyey markaasaa nebiga loo sheegay nebigu wuxuu yihi man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacili xadiidkii muslim man dalla calaa khayrin qofka dadka khayr u tilmaama ninkan waxaa loo tilmaamay waxbuu ku weydiisto waxaad tihi waxba ma hayo laakiin waxaad ugu dartay war bal hebel siimar waa laga yaabaa inaad ninkaa ka heli karto mujarad waad tilmaamtay adu waxba maad bixinin tilmaamtaasi haddii ay guul keento nabigu wuxuu leeyahay man dalla calaa khayri wanaag ciddii dadka u tilmaamta falahu mithlu ajri faacili kii sameeyey baa lamid oo kii sameeyeyna ajarkiisii uu leeyahay adiguna ajar u dhigma kaa sameeyey ajarkiisii baad leedahay idan ama nafci adduun ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo qofka mu'minkii waa inuu naafic noqdaa waa inaad marka hore ka fakaraysaa dadka sidaad wax u tari lahayd cali ibn abi aalib ayuu nebigu ciidan u dhiibay dagaal baa la galay khaybar meesha la yidhaahdo labadii maalmood hore waa la furan kari waayey
wuu adkaaday dagaalkii maalin saddexaadii ayuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin ilaahay jecel yahay ilaahayna jecel inuu raayada loo dhiibi doono cali oo xanuunsan ayaa loo yeedhay nabigaa u duceeyo ku tufay waa bogsaday cali baa la yidhi ciidanka hogaami dagaal buu gelaya haddaad janan dagaal gelisa maxaad kula dardaarmi lahayd nimanku iya kaa baxsanin soo maaha si fiican dagaalka u gal maya nebigu wuxuu kula dardaarmay fawallaahi لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم حنبو كلا دردار إلهي بان كو دارته mid quro kamida gaalada in ilaahay ku soo hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan galabkiisa casas يعني ina wadanka furataan oo qaniimo iyo xoolo badan heshaan oo tidaahdaan gaaladiina waa laynay xoolana waa ka soo helay waxa ka faa'iido badan buu nabigu leeyahay mid kamid ah inuu diinta qaato marka asalka qofka mu'minka xataa hadduu goob dagaal joogo dadka la maaha hadafkiisu dadka xoolo ka hel maaha hadafkiisu waa dad intan inay faafto hadafkiisu waa inuu dadka naar ka badbaadiyo qof gubanaya hadduu ka soo horbax maxaad samayn lahayd qof dab ku dhago ololaya hadduu ka soo horbaxo wax kale kamaad fakarteen koow waxaad ka fakari lahayd maxay inaad bakhtiiso ma is odhan lahayd waa horta kolley waa kaa gubanaya uu sii socdaayo jeebabka baadhan balin wax ku sii jiraan ka gaadhsii saacadda iyo wax ka fur yani mentaalitiga qofka muslimkii dhaqaalaha maaha dadkan inaad xoola ka hesha maaha mentaalitiga qofka muslimkii maaha dadku inay dhintaan mentaalitiga qofka muslimkii waxa weeyaan dadku inay diinta gaadho inay dadku badbaadaan adduunkoodana badbaadaan aakhiradooda badbaadaan sida awgeed buu nabigu wuxuu leeyahay qof qoro ku hanuuna kaaga khayr badan inaad gaal cascas hesho baalana markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam mar hadduu ku tilmaamay axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas ama khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa alle ugu jecelaya ka dadka ugu waxtar badan ama uu tilmaamay dadka waxa ugu khayr badan ka dadka maxay ugu nafciga badan leh ama nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamaya maalan ina allaha wa malaa'ikatahu وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير إلهي سبحانه وتعالى هي ملائكتيس هي السماء واحد دقن هي دولك واحد دقن حتى قرآن جدا قدك كتشرته أما كلونك بدأ كتشره وحي كصلينا إياه يعني إلهينا أن حريستي سوسينا إياه مخلوقات كنا إلهي بي وحي ويدين يا محي إلهي ندبق وضعفه ونحرسه على معلم الناس الخير قفك ضدك خير كبره أيها الأحبة صلاة بلادي ما يبان في الأيام سو كوبينا وحي نكو كوبينا نولش وينات contribution كويالتا نولش وينات قف واحترام نقطة نولش ما هينات قف ديرادا نقطة oo wuxuu cuno iyo wuxuu xoogsado tiisa ka fakarayna noqoto ma qofka muslimka dhaqanka lagu yaqaan marka waa maxay waa qof waxtara oo waxtarkiisu sida ambiyada ilaahay uu ka waramayo ilaa iyo gaalada ay gaadhayaan inaga muslimkii baa baynu ficilaa maxaynu gaal anfacnaa muslim oo dhanka kaalaya intii kula dhulka ahayd ama kula dadka ahayd ama kula jaarka ahayd ama kula deganayd ayana ficilnu gaadhaynin إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى إنه دينتنا ينفهمسيه إن جاي لك قمناده ذكر قمناته وغيره كوا واحترس إذا النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام إن ربنا جاي له وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم